Liverpool ayaa cashar kaloo adag ku dhigtay Old Trafford taa oo keentay su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalka macalinka reer Holland. Tababaraha ma ahan arrin udub dhexaad u ah Manchester. Gudoomiyaha Ionis Sir Jim Ratcliffe ayaa sidaa yiri kadib markii Erik ten Hag uu saxiix qandaraas cusub oo 2 sano bishii July. Laakiin markuu ninka ugu taajirsan Britain la arkay isagoo gacmaha ku haya dhabanada isagoo aan rumaysan waxa socda, wuxuu daawanayay guuldarada United saddexda gool gurigooda ku soo gaartay Liverpool. waxay ahayd in la yaabto inuu wali aaminsan yahay hadalkaasi. Natiijadaasi ayaa xaqiijisay in Ten Hag uu haatan yahay tababaraha kaliya United taariikhda 2 jeer laga badiyay saddexdiisa kulan furitaanka Premier League. Hoos u dhaca muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa cudurdaar looga dhigay inuu kooxda ku cusub yahay, laakiin hadda ma jirto cudurdaar. Ten Hag ayaa weli dib u sii wada United isagoo 206 milyan oo geni u dhiganta 271 milyan oo ku maalgeliya bartilmaameedyadiisa suuqa kala iibsiga xagaagan. Liverpool ayaa si naxariis daraa u soo bandhigtay ciyaabaha ka jira qaab ciyaareedka kooxdan maadaama ay ka wanaagsaneyd dhan walba, taa oo noqon doonta walaac weyn. Laakiin Ten Hag weli uma muuqdo inuu aqbalay liidashadiisa taa oo wiiqi karta rajada kooxdan. waan kabsan doonaa, waxaan ku guuleysan doonaa koobab, ayuu yiri ciyaarta kadib isagoo la hadlay Sky Sports. waa waxaan macquul ahayn haddii Ten Hag uu sii hayo xilka ilaa bisha May. shirkadda Ionis waxay samaysay qalad weyn oo xukunka ah si ay u ilaaliso konton afar jirka ololaha United 25 wuxuu noqon karaa mid gebi ahaanba aan la badbaadin karin. Ratcliffe shaqaalihiisa muhiimka ah sida Omar Barada, Dan Ashworth iyo Charles Wilkes dhammaantood way joogeen si ay u daawadaan bandhigga argagaxa ee ugu dambeeyay United. waxayna ka tageen Old Trafford iyagoo og inaysan jirin wax xal ah. gabagabada sheekada, Ratcliffe waa la cafin doonaa haddii dib u soo celiyo saacadda oo go'aan geesinimo leh uu gaaro. waan kala jeedo haddii warqadiisa siiyo ninka lagu magacaabo Erik ten Hag. taageerayaasha way ku kala aragti duwan yihiin fikirka ah macalinkan shaqada inuu sii joogo. badi dadka ayaa aaminsan in xilligan ay ku qanacsan yihiin ama ay wanaagsanaan lahayd in shaqada uu isaga tago hogaamiyahan maskaxdiisa inta badan aysan shaqaynin. qaladaad uu sameeyay Casemiro ayaa lagu ciqaabay United 3 gool looga adkaaday kulan ka dhacay Old Trafford horyaalka Premier League. waana wax niyadda lagu sii hayn doono ilaa laga soo laabanayo dhanka ay qaramada oo la aadi doono toddobaadkan. kulamada horyaalkana aysan jirin. masar xariyada ka jirta xal mu noqon kartaa in la raacdayo Ten Hag iyo imaanshaha Manuel Ugarte ayaa ahaa midka ay aad ugu baahnayd kooxdan. Ten Hag ayaa shaxdiisa ku soo daray 100 milyan oo geni uu ku soo iibsaday saxiix cusub, laakiin dhamaadkii xanuunka leh iyo xanuunka badneed ee ku ciqaabtay guuldarada Liverpool ayaa la dareemayay in Manchester u baahneyd ninka fadhiya tarabuunka. Manuel Ugarte ayaa garoonka dhexdiisa looga saacabatumay koortii aysan bilaaban ciyaarta. ciyaaryahanka 50 milyan oo geni ku soo biiray ama kaga soo biiray Paris ayaa markaasi fadhiistay ka oo daawanayay dhibta ku dhacaysa kooxdiisa cusub. Ugarte ayaa la seexday maalintii ugu dambeysay suuqa. marka loo eego inuusan u ciyaarin Paris xilli ciyaareedkan inta laga xaajoonayo dhaqaaqis United uma badnayn in Ten Hag ku soo bilaabi karay. laakiin xidiga qadka dhexe ee aad ku adag Uruguay ayaa ciyaartan ka daawanaya tarabuunka. 3 qad dhexe ay adeegsatay ka oo dhibaato badan ku abuuray United. Casemiro ayaa haftay qaybtii nasashada iyo Kobe Mainoo qodiisa aad u jahwareeray. United ayaa u qoonstay Ugarte inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee booskaasi. Ten Hag ayaa awooday inuu si buuxda u ciyaarsiiyo saxiixiisa cusub oo ka keensaday Bayern iyo dhaliyihii Bologna ka yimid, laakiin dhammaantood way awoodi waayeen inay kooxda caawiyaan. United iyo madaxdooda ayaa looga fadhiyaa jawaab sax ah ee ku qancaan taageerayaashooda.